carabta ayaa ugu baaqay qaybaha Soomaalida in ay wada hadlaan si ay u gaaraan heshiis ku saabsan doorashada guud ee lagu wado in ay ka dhacdo dalka Soomaaliya. war ka soo baxay ururka ay ku bahoobeen dowladaha carabta ayaa lagu sheegay in jaamacadda carabta ay tixgelinayso dadaalada ay sameynayaan madaxda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada si loo helo xal kama dambeys ah oo ku aadan qaabka loo qabanayo doorashada dalka. jaamacadda carabtu waxay ammaanaysaa shirarka loogu gogol xaaray qabashada doorashada oo kii ugu dambeeyay ahaa midkii ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka Galmudug ayaa lagu yiri warka ka soo baxay ururka jaamacadda carabta ee fadhigiisu yahay magaaladan Qaahira. jaamacadda carabta ayaa sidoo kale ugu baaqday in ay dib u bilaabaan mas'uuliyiinta qaybaha siyaasadda ee dalka Soomaaliya wada hadallo ku aadan sidii loo gaari lahaa doorasho loo dhan yahay oo ka dhacda guud ahaan dalka Soomaaliya. dhinaca kale ururka jaamacadda carabta ayaa soo dhaweeyay shirka uu ku baaqay madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ee lagu wado inuu qabsoomo 15 bisha aynu ku jirno. shirka uu ku baaqay madaxweyne Farmaajo waa mid soo dedejinaya in qaybaha Soomaalida ay gaaraan xal rasmi ah oo ku aadan doorashada, waana mid xoojinaya deganaanshaha iyo nabadda dalka Soomaaliya ayaa lagu yiri warka jaamacadda carabta ay ka soo saartay xiisada ka taagan qabashada doorashada guud ee dalka Soomaaliya. gabagabadii jaamacadda carabta ayaa tibaaxday dowladaha carabta in ay ka taageerayaan dadka Soomaalida sidii ay u gaari lahaayeen xal waara oo isku haynaya midnimada Soomaaliya, horumarinta dhinacyada dhaqaalaha, siyaasadda iyo bulshada, iyo weliba dagaalka ka dhanka ah argagixisada. hadalka ka soo baxay ururka jaamacadda carabta ayaa imaanaya xili dowladda federaalka Soomaaliya, maamul goboleedyada dalka iyo weliba axsaabta mucaaradka ee dalka Soomaaliya si weyn ay isugu diidan yihiin qaabka doorashada loo qabanayo iyo xilliga ay dhacayso. Xuseen Saxnuuni, VO